mucjiso miyay ahayd mase qiyaamo weyn weydiimaha uu reebay kulankii xalay ee Real Madrid ku gaartay finalka koobkan ay doonayso inay qaado markeedii 15aad ayaa noqday kuwa hadalhayn badan ka dhaxoogay internetka khubarada falanqeysa kubadda cagta iyo taageerayaasha Bayern Munich gacmaha maran kala hoyatay Bernabeu ee riyadeedii finalka lagu qarajiyay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta inta aynaan ka waramin dooda ka taagan xalal ahaanshaha guusha Madrid aynu marka hore dhugano soo laabashadii mucjisada lahayd ee Damaranges u sahashay guusha kulankan taas oo uu sabab u ahaa Khosaluga 34 jirka ah ee Madrid amaahda kula jooga oo isagoo daqiiqadii 81aad bedel ku soo galay 2 gool oo aan waqti badan u dhaxayn ka dhaliyay Bayern uu shabaqeeda gaari waayay Vini Jr labadan gool ee hogaanka Madrid kula wareegtay waqtigan la joogay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee kulanku waxay sahleen in Los Blancos markeedii 17aad gaarto finalka horyaalka kooxaha Yurub oo kamid ah tartamada naadigani ugu fiican yahay cid walba waxay si uun u rajaynaysay in Madrid markale xoqan karto kaarkeeda mucjisada ah ee minidada ugu dambeeya ay guusha ku hesho hayeeshee lama filayn in guushaasi ay ka timaado Rudiger oo caawiye ah iyo Khosalu oo dhaliya ah mid kale oo mucjiso ah ayaa ah in Khosalu isagoo taageera daawanayay finalkii Champions League ee Madrid ka qaaday Liverpool 2022 halka uu 2 sano kadib lugtiisa Blancos finalka ku geeyay bandhiga ciyaarta hadaynu ku noqono 20 daqiiqo ee ugu horeeyay Real Madrid ayaa ciyaarta maamushay inkastoo inteedii badnayd ay u muuqatay mid isu dheeli tiran oo labada kooxoodba fursado fiican abuureen haddana qaybtii dambe Bayern ayaa hogaanka ku qabatay gool qurux badan oo uu dhaliyay difaac dameedka la yiraahdo Alphonso Davies kaasoo culayska ku badiyay Madrid martida loo ahaa tan muranka ugu xoogan dhalisayse waxa ay ahayd gool uu dhamaadkii daqiiqadihii ciyaarta lagu daray dhaliyay Matthias de Ligt taasoo inta uusan dhalin ka hor mid kamid ah calan wadayaashu muujiyay ishaarada offside-ka halka garsooraha koowaad ee ciyaartu Firimbiga yeeriyay falanqeeyayaashu waxa ay ku tilmaameen diidmada goolkan qalad ka dhacay calan wadaha ka uu ku degdegay inuu calanka kor u qaado iyadoo aan weli xidigaha Bayern u talaabin xadka offside-ka goolkuna uu ahaa mid xaq ah ugu dambeyn Madrid waxay garoonka xulqaranka England ee Wembley ku wajihi doontaa Borussia Dortmund naadi haysta hal Champions League markiisii saddexaadna jooga finalka Madrid waxay goor horeba u dabaaldegtay guusha ay filayso ee Champions League-da 15aad halka Borussia ay keedii labaad gaadayso